waa tallaabo ku dayasho mudan oo si degdeg ah uga jawaabeen musharax madaxweyne ku-xigeen ahna wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane waxaana ay markan si wada jir u dhagax dhigeen bilowga dhismaha dugsiga hoose dhexe deegaanka Gargoorey oo ka tirsan degmada Boon ee gobolka Salal kaasi oo ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaankaasi maadaama muddo badan si ku meel gaar ah carruurtu wax ugu baran jirtay dhismahan girgida ah ugu horeyn Dr. Axmed Aadan Buuxane wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland oo hadalka qaatay ayaa sheegay in si degdeg ah loo dhameystiri doono dugsigani alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay mahadi weeye maanta waxaynu dhagax dhigaynaa iskuulkii loo dhisi lahaa degmada Gargoorey ee buurta Libaaxley kaasoo aanu muddo qaban qaabinaynay ballanqaadkiisana uu lahaa wasiirka ganacsiga ahna murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye oo runtii muddo daba socday dhismaha aan ku soo guulaysanay ugu dambeyntii inaan soo helno iskuulka ilaahay idankii iskuulkaas furitaankiisana muddo dhow baan ka qayb gali doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan ilaahay u rajaynaynaa iskuul qiimo leh oo mustaqbalka ubad badan ka soo baxaan sidoo kale musharax madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay halkan waxaan imidday maalmihii ololaha diiwaangelinta waxaan soo maray deegaanada oo ku dhan tuulooyinka oo ku dhan Xaliimaale Cadaad meel kasta soo maray iskuul dhagax ka hor dhisan halkan uma imanna waa iskuulkii baa la yidhi sidaa la ajligeed iyo talada marka hore ay ku timaatay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka waxbarashada oo ugu dambeyntii ballantii u dambeysay qaaday ma dhagax dhigayna wala dhisay imika aad iyo aad baad mahadsantihiin intaa kadib mas'uuliyiintani ay wehelisay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa si wada jir uga dhagax dhigay seeraha buurta Libaaxley xarunta dalxiiska oo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Somaliland ay ku yeelanayso deegaankaasi waa sida uu sheegay musharax madaxweyne ku-xigeen ahna wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin laga galayay buurta dalxiiska يا هلك اللي قد يسيا اللي ها بسم الله وعبد السلام بشير فارح عبد السلام ساها ورباهين تقارن